saddex iyo sagaalna waxaan u sheegaynaa meel walbay joogaan inay diyaar garoobaan weerarana lagu soo qaado dadban mid toos ah inta dadnoolaanta wadato oo madaxweynaha ka soo saxiixtay warqadda annaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan raali ka ahayn waxayna dheen xasan shiiqa soo siixay xasan oo hadaa soo siixay iscaday hadaada soo siixin dadkaas wax nagala qabo maya dhulkan dawladda ma qaadanayso tukukaadi dhulkan dhul dawladda qaadanaysa ma haday dawladda qaadanaysa aniga gaashaandhigan dan guud u bixin salaan sharaftan dan guud u bixin gurmadka qarankan dan guud u bixin dawladda ma diidayn dawladda haday qaaday ma diiday dawladda qaadamaysa dad kala qaatooy oo nool dadkii lahay hadaan lagala macaamilin mahaas dib horime dadkii lahayna waa dadka hadla hadeer dadka hadla waaye macaamil waa la diiday xoogna ku socon ma adduunyada cabasho ayaan waxaan ka nahay dad isku soo dayayo annagoo ah gooflayaashii deganaa oodweyne xerada oodweyne dhabarkeeda dambe waxaan cabasho ka nahay dad nool oosto iyo adduunya soo suubsadeen ayaan waxaan cabashadeena u gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaan wasiirka cadaaladda siiba wasiirka cadaaladda waxaan leenahay annagu waan boob baan lagula socdaa waxaan anficaynin oo adduunyada laga arkin goofaheeni in loo soo anaga xeero shaqo kuma lihin xerana uma jeedno laakiin wixii goofa ah maxamed siyaad bar wuxuu yiri 100 tallaabo wixii ka xageeyo ma soo jirsan kartiin goofafkeenna waa sidaas oo kale wixii goofaha oodweyne gudaha ku jiro shaqo aan ku leenahay ma leh laakiin dadka nool oo sida u soo suubsanay anagu waa ku shiidina shahaadan ku qaadanaynaa had diyaar garoobaan saddex iyo sagaalna waxaan u sheegaynaa meel walbay joogaan inay diyaar garoobaan weerarana lagu soo qaado dadban mid toos ah inta dadnoolaanta wadato oo madaxweynaha ka soo saxiixtay warqadda annaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan raali ka ahayn waxaas oo wax nooga qabto haddii ayagu waxay leeyihiin madaxweynaha noo soo dhiibay madaxweynaha noo soo yeelay bal inaan la xaajo arrintaas la baaro wasiirka cadaaladdan waxaan ka codsanaynaa arrintaas sida ugu dhaqsiya badan inuu cadaalo haddaan saddex iyo sagaal nahay annaga ma yeelayno mana yeeli doono anagu waxaan nahay dad dhibanaa oo dhulkooda lagu soo duulay waxa waaye marka madaxweynaha marka maxamed siyaad abtigeena oo sargaal ah inta noo yimid oo wili gaashaandhiga waxaa loo bixinayaa saxootan danguud haddana waa nagu soo noqday 23 bishii 8aad waaye waa nagu soo noqday waxa uu yiri haddana salaan sharafta danguud leenka ka rabaa haddana waa nagu soo laabtay gurmadka qaranka qaybteeda wili haddana waxa leenka rabaa danguuda leenka rabaa 130 boos noo hartay 130 kaas boos idinka iskale leenkuma labi karo waxaad yeelaysaa 4 qol oo sara ha loo dhiso cidaasi musqushood ha ku dahada ganaadaano meesha jaangada ay hadda dagayna laga tuuro gaashaandhiga wuxuu nooga bixiyo tuba biyo salaan sharafta wuxuu nooga bixiyo tuba biyo gurmadka qaranka wuxuu nooga bixiyo tuba biyo raashinna saddex isbeesho nooga qoray salaan sharafta uu nooga qoray oo isbeeshadiiba ay tahay 6 jiira gaano 6 caago saliida geedkii sokora loor saliib bariida loor bura inta saddex isbeeshaan ka qaadanayna waxaan hayna dad annaga maasha Allah nabad u soo gashaan hayn inta kalena waa la idin dhisaya guriyihii dhismadoodii waxaa cuntay damaayo cuntay madaxweynuhuna waa noo soo amray warqadaheeda uu soo dhiibay ha loo dhiso dadkaas guryaha ma garateen marka alxamdulillah shukri waxaan sugaynay horta ilaahay weynaan sugaynay waxaan sugaynaa madaxweyne xoota daacada aan sugaynay xasan maxamuudow madaxweyne daacada aan sugaynay madaxweyne daacada noo sugaynay madaxweyne daacada noo noqo ra'iisul wasaare daacad noo noqo waxa yeelaysin dhulkayna noo soo dhiciyo sababta lagu daga dhulkaasna qaxi markaan ka siirta ka qaanay guri dhisan oo shiir kale lagu soo garaacay la keenay subaxdii markaan eriga soo raacno raadeelaan degnay oo nimaadaba naaga dab ku babinaysa maxaad ahayd naaga leexay ariga leexay dhulkii hashala aad ariga daajisay ay haddana xawad guri ku dhisatay boobka soo habeenaha la dhistay haddii islaamnimo jirto walaalnimo jirto oo ehelnimo jirto oo madaxweyne daacada tahay waaba tahay madaxweyne daacada
عوتد dhulkayna dukumentiga waa laga qaxmoogiyey dukumenti maxamed siyaadna siiyey aan haysanay oo yiri waxawtad guryahana ha loogu dhiso dukumentigoodaasna ha heestaano lagama dhici karo lagama qaadi karo dhulkooda iyagaa iskale 130 boosna waay asagaa yidhi haddana waa kana xoogaa noogala heesta abtina markaa sargaal wahay wuxuu yidhi dagaal ma keeni kartin ya ciidaa qolada haysata ya noolo hoose haddii la bixinayo annaga xaq uga qof kaloo islaameed in noolo hoosada ay qaadato maaha annaga yaa u dhiban abtina wuxuu yidhi dagaal kuma geli kartaan waxaad yeelaysa madaxweynaha xaqa oo wax idii kala qurxiya haddaad heshiin suga sidii aan ku taagnayn noolo hoose haddii la bixinayo annaga xaq u leh oo dhulkayna uu yahay oo waxa dawladda horeba nooga tagtay يا نجا قادتي مركي الحمد لله شكري وحواي نور أوتها دي لبحنا يا نجا هقوله مايا دول كان دولة ما قادنا شكو كادي دول كان دول دولة قادنا يسمع هذا دولة قادنا يسأني قاشان دي كان دنقولوا بحنا سلام شرف تندنوا بيقولوا بحنا قول متكقرن كان دنقولوا بحنا دولة مديدين دولة هذا قادة مديدة دولة قادة ما يسهدت كلا قاتوية أو نور أوصله وجوينا مقدرت كذبنا أقولين annaga inaan dhulkayna anaga nooloosinaysa anaga nala siiyo waay waxaa waaye warda fariiri madahnaa la yidhi anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed haddana hawiye haddana 39 nin murusadaan ahay nin 39 aan ahay gaashaan dhiga ninka la yidhaahdo waxuu ahay tarq iyo sagaarka dhulka ka dhexeeya maxamed siyaad barre madaxweynihii hore soomaaliyeed dadkii lahay baa lagala macaamilaha wiri dadkii lahay haddaan lagala macaamilin mahaas dhib horime dadkii lahayna waa dadka hadlaa haddeer dadka hadlaa waaye macaamil waa la diiday xoogna ku socon ma adduunyada nin ugaasa oo ciddaan maxamuud hiraaba oo ninka le xadka aaday xadkii markuu aaday ayuu wuxuu ku dhumay kabcadii ingiriisi carabina midna ma yaqaan asigoo maaragtay meeshii iska habaaba ingiriisi carabina aan aqoonaa nin carab u yimid ninka carab ahay waa fiirshay dadka uma ekee markuu fiirshaye uu yidhi carabi ingiriis ma aqaano uu yidhi ma aqaan markuu yidhi ayuu ka tegay nin soomaaliya oo arkay war ninkuu egoo meel fadhaan arkay waa soo bax waa u keenyey assalaamu calaykum wareedha bal warrama uu yidhi gacanta midigta iyo bidixduu ku dhegay baasaboor ma wataa huu yidhi baasaboor wuxuu yidhaahday ma wato soo bax ninka carabkaa oo meeshaas fadha oo xafiiska jooga gacanta midigtaa ku dhigay ama baasaboorkaygiisina ma lacagtaydi gacanta midigtaahu ku dhigay markaasuu wuxuu siiyey baasaboor wuxuu siiyey ninka la yidhaahdo waxaa waaye xujaydii u geeyey may iyo maxaa tiri may ma ahayn dir iyo daarood iyo hawiyownimo ahay ma garanayo yidhi ninka nin soomaaliya saaka ama dhaca ama dilaana yaa oo hadda muslin ah ninka dilaa ama dhaca ninkaasu waa dulmano waana lagu shahiidaa ninka oo dhaca waa ku shahiidaa iyo intii muslimiin oo kale annagu ninka la yidhaha waxaan cabasho ka nahay madaxweynaha soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa waxaanu sheegaynaa arrintaas waa inuu dawaanka uu adkeeyo oo wixii uu hore u dhacay ou soo celsho ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidaan u sheegaynaa intaas baan idinka codsaynaa maanta annagoo goofleya waxaan halkan ka doodaynaa xaqeenna inaan helno dhulka ku yaala gaashaandhigka xeedho guulwada iyo salaan sharafta annagaa iska leh taraqa iyo sigaarka lambar 1 lambar 2 dhulka oo neeshinka laga dhisay ay soomaalida qaarkeed ay dhisay weliba beelo qabiil awood leh ay ku qabsadeen annagaa iska leh ilmihii lagu dhalay gabadhii lagu dhalana aabbaheed waa ku xirmaa wiilka ku dhashana hooyadiis waa ku xirmaa lambar 3 dhulka ka dambeeya dhulka dhisan oo hadda la rabo in la dhaco dadweynaha laga gato lama gadan karo ninkii gato xaq daro ku dhintay waa idin sheegaa waxaan halkaan madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ugu sheegaya xaqeena naga maqan xaqeena waa inaan helnaa waxayna dheer xasan shiiqa soo siixay xasan oo hadaa soo siixday iscaday hadaada soo siixin dadkaas wax nagala qabo